كيف يجي الشرعي سيد الشرعي رضا الله صور بقى صندوق صار سنة runtii waa rag taariikhda galay layloobi maayo waxa uu yidhi horta xornimadii dadka iyo karaamadoodii halkan dheer baynu u soo galnay inaynu xor noqono waxa ugu muhiimsanaa dalkani wuxuu ahaa carjuuq leh ma hadli kartid iyo xurmati xurriyat alqowl kadaraadi ayuu dalkan u rogay oo wixii aynu u soo marnay si aynu xurriyadeennii ula soo noqono waa la wadoogi maanta khatar inaynu ku jirno waxa u daliila dowlad kasta marka imaanaysa ama ay xun tahay waxyaabaha ugu horeeya ay ku kacdaa waxa weeye waxay la dagaalantaa xurriyat alqowlkana waxa ugu muhiimsan markay Soomaaliya noqoto xurriyadda saxaafadda maanta xurriyad saxaafadeed oo la oran karaa Soomaaliya way ku jirtaa ma jirto waxa weeye waa nasiib daro waxaa soo tacabay waxaa soo khasaara iyo waxaa soo sacrifice waxaynu u soo galnay inaynu xor noqono haddana waxaynu leeyahay maanta madihi waxa kaloo marka runtii xurriyat alqowl la dagaalamayo waxbaa loo adeegsadaa waxa loo adeegsadaa ciidan mushkiladaha ugu waaweyn ee Soomaaliland ka taagan xildhibaanadana shalay loo adeegsaday waxa weeye bilis in badan ayaynu iska inkartana waa xukuumadda xubin markay bilis ay gacanta ku dhigto oo bilisku xor noqon waayo bilisku accountable noqon waayo publica oo accountable noqdo madaxtooyada tan oo kala dhacda waa la adeegsadaa xurmay ahaayeen xildhibaanadu in ciidan soo gala may ahayn madasha uu shirku ka socdo laakiin ciidan baa ku soo duulay ciidanka ku soo duulay sharci darru sameeyay laakiin waa la caadisay oo markii uu horeysay bay ahayn marka mudaaharaadka ciidan loo adeegsado dadka rasaas loo dhaco marka suxufiyiinta la xakado ee laga dhiiwa tan way soo socday kolkaa runtii dembiga xukuumaddu ha lahaato khaladaadka ay sameynayso noqon laakiin shicib xildhibaanada kuwa xorta waxaan xasuusinaya waa inta uu bilaysku gacanta dowladda ku jiro ee aanu xorka ahayn oo madax bannaanayn sharcigeedu wuxuu dhigay in bilaysku loo madax bannaanaado oo saxaafaddu loo madax bannaanaato oo aan labadaa madax bannaanida lagu madaxbanaanidooda la waxyeeleeyo loo turo oo ay jirto laakiin marka la mijaxaaliyo madax bannaanida bilayska iyo tii saxaafadda ogow markaa waxa soo socdaa waxa weeye amar ku taageeray dictatornimo hantibo iyo awoodii dowladeed oo dadka lagu gumaado waxaan kolkaa anugu hadalkay ku soo gabagabeynaya in aynu ogaano in labada qodob haddii aanaynu wax ka qaban in aanay waxa kalena wax ka qaban karin marka xoog lagu sheegay waxa weeye ciidanka iyo cashuurta dadka laga qaaday mushaar ka qaadanaya ayaa lagu adeegsaday inagama xiyaan ciidanku waxa ay dhex noo ahaa laakiin dee waa loo adeegsanaya imika waxaynu ku kala duwanay waxa weeye ciidankii bay hantiyeen ciidankana maaha in ay xukuumaddu yeelatay laakiin ciidan kasta dowladaha wanaagsan waxa weeye ummadda ah wixii sharci darra ciidan kasta uu ka taxadiray laakiin imika amarkaa ka sarreeya sharciga iminka booliiska haddaad tidhaha maanta waa sharciga iyo amarka yaa sarreeya wax ku aniga waa lay amar kolka boliis dee maaha waa militarigunbaa lays amraa arrintaa nimayo aad aynu xusuusnaano waa muhiim xurriyat alqowlka ilaashado boliiska sidii aynu uga furfuri lahayn gacanta dowladda
إن أيو فلوجت قبلوه هذيك نحتاج دولة ثلاثة تبعه سيدا ربنا يبنون الكون. السلام.